بسم الله الرحمن الرحيم. كسر وضع شبكة Somali entrepreneurs. عشر كلمة دبي وحمرنا monetize your videos كي نصام monetize قرناي. monetize كواحد اللي وضعك الصومالية مرسالة الصومالية وضعك هو أين رمين جرس أي كفاية يستعمل يرتى الصومالي دو وضعك إني لقى بالبوية. مركزين وقفرنا وحين نروح دورنا وضعك United States بنكرد قرنا أو أمريكا نكرد قرنا مركز. لما رلبا وحين سمينا إنه نسمي سنة markaas markaan waddanka bedela kadibna enable lahada markaan wado Mareykanka waa habka ugu fudud waa habka aan u baahnayn in ma garanaysaa in qof dibadda jooga u baahnayn lagiisa waddanka kaliya aad ka dhiganaysaa hadhowna waxaan samaysan doonaa option ah Binary Bank ama bank online ah samaysanana kadibna lacagta si fudud baad ku helaysaa markaas Mastercard ka halkaas ka isticmaalaysaa markaa haddeen u soo noqono halkeenan labada feature waynu sameynaa ma nidhi inaynu monetize ki u furnayo sidoo kale in location ka dhigay United States way hadaba waxaan markay monetize ku u furnay inteena u furin afar shardi baa laga rabaa baan nidhi kow inaynu aqbalno sidoo kale waxa ku jiray set up Google AdSense inaan samaysto markaas monetize ka u sii wadno waxaad u baahan tahay inaad samaysato Google AdSense inaad Google AdSense furata markaa ama samaysato markaa aad u baahan tahay way Google AdSense markaa doonayaan inaad samaysto waxaan tagay website-ka Google you can set up Google AdSense for free at AdSense website-ka Google ba tagaysaa dabcan YouTube-ka iyo Google Ads waxaba waxa iskala shaqada Google ba iskale markaa wuxuu waa product of Google markaa Google website-ka waxa tagaysaa maaragtay AdSense ba tagaysaa kadibna sign up for free shuruudu ugu xeewanay 8 maartay ka weyn tahay sidoo kale waxaad u baahanaysaa hadhow bank account iyo email address AdSense ka u isticmaasho markaa way you only gain money per ad click markaa waxaad lacagta ku helaysaa waa AdSense waa meesha ugu muhiimsan ee dadku ka tagaan badana YouTube-ka enable u sameeyaan kadibna saa kaga tagaan lacag ma helaysid AdSense bal kuma rangaray Google AdSense wanaad furataa ku soo xidhaa Google-ka kadibna AdSense la rangareeyaa kadib AdSense ad clicks ama ad views aad ku heshaa markii AdSense la kala gareeyo dadku qaar waxay sameeyaan Google AdSense kuma xidhayaan kadibna maxaa dhacaya monetize kuma furayaan lacagtu eber bay weligeed taanaysaa lacag ma soconayso qofka uma soconayso sababtu wax kale ma waxa weeye in aanu AdSense-kii gaar u furan intuu furtay aanu ku xidhin markaa YouTube-ki haddii aan taas sameyn markaa wax lacag ma garanaysa markaa not before Google you have to reach 1000 subscribers or 4000 watch hour threshold to start earning when aad gaadho 1000 subscribe marka doonaysa in AdSense inaan ku xidhno shardiga u dambeeyaa waxa weeye inaad 1000 subscribe gaadho ama markaas ay dadku lacag toos ugu bilowmaysaa marka waa inaad dadaal samaysaa bil audience-ga techniques-ka aan soo arnay isticmaashaa kadibna aad 1000 subscribe gaadha muddo yar baad ku gaaraysaa 1 month 30 days 2 months 3 months or ama 4000 watch hours marba dadaalka ay ku xirantay ama inaad 4000 saacadood la daawado threshold-ka weyn gasad inaan kugu bilow marka way balance laagna hadaba waxaan marinay maalinka u dambeysay halkan apply for monetization inay apply garta monetization-ki kow afarta step inuu weydiinayaan mid marna marka read and agree to YouTube partner program inaan akhriyano kadib start baan leeyahay waxaan akhrinayaa terms-ki marka sharcigii iyo heshiiskii aad la galisay markaa waan akhriyeemaan lay kadibna saddexda tigtaan saaraya markaa kadibna accept baan lay way taara tigtu saaray kadibna sign up for AdSense kii waan sign up garanaya waana iminka lahayn AdSense waa inaan sign up AdSense sign up garay start ma leeyahay marka ama mid hore u jiray hore u samaystay baad ku xidhan karaysaa mid cusubna waad dalban karaysaa marka kadib waxaan leeyahay next baan leeyahay marka kadib wuxuu ku leeyahay inaad Gmail ku saaran garto kan baan ku sameeyaan AdSense kaasaan ku dhufanaya marka kaas Somali entrepreneurs كان أدو استعمال يوتيوب كاغا استعمال كرسا ميد كرو غارنا استعمال كرسا marka way halkan ii soo dhigaya marka si wacan ila socda
haddeen halkan eegno iminka gmail keeni weeye channel keeni halkan waxaa leeyahay markaa YouTube isaga inoo geliyo website keeni oo macnaha channel keeni buu inoo soo qaaday halkan waxaan leeyahay yes haddaad u baahan tahay in waxyaabo badan ugu fududeeyo marba uu ka caawiyo helbi yes haddii kalena no ma baahni select your country countrygaaga sheeg United States baan waddankana waxaan ka dhiganayaa maxay United States baan ka dhiganayaa marka kadibna ayaha Fred kadibna create account baan leeyahay marka account-ka ii samee marka kadib get started baan leeyahay waayo mar haddaynu maraykanka ka dhiganay addresskii waxaynu isticmaalanaa halkan account type waxaan leeyahay waa individual name and address name magaci iyo address namega waxaad ka dhiganaysaa magacaaga waayo halkan waxaad ka dhiganaysaa marka address kaaga isticmaalaysaa marka halkan haddaynu mar maraykanka dooranay magacii waa inaad address maraykana haysataa waa inaad address details addresskaaga detailskaada samaysa marka waddanka isticmaashay bay ku xidhan tahay imika United States bay inagu dooranay videoga dheeraanaya haddii alla idmo payment addresska videoga ku xigeen insha Allah ku dhamaystirana marka haddii alla